مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhowaada barnaamijkeenii taxanaha siirada nabiga caleyhi salaatu wasalaam. xalaqadii ugu dambeysay waxaan soo gaarnay xaadisadii ama qisadii al-israa walmicraaj. al-israa walmicraaj wakhtiga ay ku aadanayd mu'arikhiintu way ku kala ra'yi duwan yihiin oo aqwaal kala duwan ayaa kusoo arooray oo weliba qaarkood ka bilaabanaya inay ahayd sanadkii koowaad ee bixtada nabiga caleyhi salaatu wasalaam. qaar baa sheegaya sanadkii shanaad, qaaraa tilmaamay sanadkii tobnaad ilaa hijrada nabiga caleyhi salaam. aqwaal aad u kala duwan ayaa jirta, laakiin waxaa raajix ah in xilliga israaga iyo micraajka inuu dambeeyey oo aqwaasha dhehaysa 10 sano oo hore ku tilmaamaysa aqwaashaasi ma xoogana. marka la fiiriyo muctayaad badan oo ay ka mid tahay in khadiija radiallahu canha ay geeriyootay intii aan shanta salaadood la farad yeelin ka hor inay geeriyootay. marka maadaama ay khadiija radiallahu canha sanadkii tobnaad ay geeriyootay, marka al-israa walmicraaj waxaa waaye sanadkii tobnaad kadib ayuu ku soo aadayaa, maadaama micraajka ay ahayd markii lasoo farad yeelayay shantii salaadood. waxaa marka rajaxan in uu u dhexeeyey israa micraajku inuu u dhexeynayo sanadkii tobnaad ee bicthada nabiga caleyhi salatu wasalaam ilaa hijrada. weliba waxaa kaloo lasii rajaxaa in safarkii nabiga caleyhi salaam uu taa'if u aaday inuu kasii dambeeyey. safarka wuxuu ahaa geeridii maaragtay abi aalib iyo khadiija kadib ayuu ahaa. marka safarkaa markuu ka soo noqday iyo inta uusan hijroonin inta u dhexaysa ayay maaragtay qisadani waqti ahaan raajixa inay ku aadanayd. waana waqti ay dacwadu ku jirtay duruuf aad u adag oo maaragtay nabiga caleyhi salatu wasalaam garab weyn oo gurigiisi ah uu waayey oo khadiija oo maaragtay aad dacwadiisa macnaha garab weyn ugu ahayd ay geeriyootay. abi aalib oo gaalada wax badan ay uga gamban jireen nabiga inay ku dhiiradaanne oo geeriyooday, oo magaaladii maka dhexdeeda dacwadii ay gashay jumuud oo ay maaragtay wax dhaqdhaqaaq dacwo ah ama koriinshimo dacwadii ah magaaladii maka dhexdeeda ay ka suurtagali laadahay oo muslimiintii iyo nabiga caleyhi salatu wasalaamba maaragtay iska hortaag xoogan iyo dhibaato badan lagu hayo. nabiga dhibaatooyinka la dhibaateyn jiray waxay noqdeen in labalaabmaan, dad badan oo aan ku dhiiran jirin inay ku dhiiradaan. marka waa marka nabiga caleyhi salaam uu baxay, waan kasoo sheekeynay, uu taa'if aaday oo uu raadinaya markas kale oo maka aanan ahayn. dacwadii maka dhexdeeda way ka socon weysay. markaan waxay ku tagtay yacni derbi bay ku tagtay inay magaalada maka ay markas u noqoto dacwada ay ka indilaaqdo. waxay noqotay mid aanan suurtagelaynin macnaha. marka taa'ifna wuxuu kala soo kulmay nabiga caleyhi salaam diidma aad u culus iyo dhibaatooyin fara badan oo maaragtay macruuf ah. qabaa'ishii kala duwaneed uu nabiga la kulmayey oo u bandhigaya dacwada, oo u bandhigaya in maaragtay qabaa'ishaasi mid uun ka mida ay dacwada aqbalaan oo meesha deegaankooda ay dacwada markas u noqoto. arrintii iyadana way suurtageli weyse oo macnaha qabaa'ishii intaa maarata wax aqbalay markaa ma jirin, ma garatay. marka xaaladda adag oo duruuftu maaragtay ee aad dacwadii ugu jirto, duruuf adag ayay qisadaani timid. macna aad u cajiib badan ayayna markaa
tilmaamaysaa macnaha. Israaga marka waxaa weeye waa dheelmintii nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada maka laga dheelmiyey oo la geeyey baytalmaqdis kaabaa la yidhaha israa. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid habeen malakul jibriil oo ka kaxeeyey magaalada maka oo isla habeenkiiba geeyey baytalmaqdis. marka halkaana ilaahay subxana watacaala wuxuu ugu kulmiyey ambiyadii ka horeeyey ayuu ilaahay subxana watacaala meesha ugu kulmiyey. ambiyadii ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam meesha kula kulmay, meesha ayuuna salaadii ku tujiyey oo meesha marka يعني تاوي مركا الإسراء وديلمينتا النبي عليه الصلاة والسلام مقالة مكا لقودي أو بيت المقدس لقي. معراج كان مركا وحوي وسفر كان النبي عليه الصلاة والسلام لقى قاضي من بيت المقدس لقى قاضي إلى سماوات كي لوكر يلي ومركا سماء النفوس وسكي سلقى بالله سماء الدنيا إلى كدب سماوات كي مد بمد كلي أسي قدبي هلكا أو مركا ملائكتي أي كسو دويين أو كدب مركاسي مرب الباب دي سماوات كمدة لا فرية ilaa samadii kale uu gudbo wahaakada. samaawaadka marka samaba waxaa la sheegaa isagoo maarata nebiyadii masaajidkii kusoo arkay baytalmaqdis kula soo kulmay, haddana nebiye gaar aha la tilmaama inuu kula kulmay samaawaadka. maalan samaa dunya samada koowaad wuxuu kula kulmay nebi aadam calayhi salaam oo markaa arkay in dhankiisa midig dhankiisa bidixba ay jiraan wax madoow ka muuqdo, oo markuu dhanka midig fiiriyana uu maarata dhoola cadaynayo farxayo, markuu dhanka bidix fiiriyana maaragtay murugooynayo u ilmeynayo. marka uu weydiiyey maaragtay jibriil calayhi salaam u sheegay waa aabbaha aadam ninkan, marka uu fiiriyey midigtan wuxuu arkayaa ubadkiisa kuwa maaragtay jannada gelaya ee ilaahay tusinaya, wuu farxayaa maaragtay. markuu bidixda eegana wuxuu arkayaa ubadkiisa kuwa naarta geli doona walciyaadu billah, wuu murugoonaya magarata. kadib nabiga calayhi salaam samadii labaad ayuu u gudbay. samada labaad wuxuu kula kulmay nabi ilaahi yaxya iyo nabi ciise. nabi yaxya iyo nabi ciise ayuu kula kulmay. samada saddexaad isagana waxaa la tilmaamaa inuu kula kulmay nabi yuusuf calayhi salaam. kadib samadii afaraad waxa uu kula kulmay nabi idriis calayhi salaam. kadib samadii shanaad wuxuu kula kulmay nabi haaruun calayhi salaam. samadii lixaadna wuxuu kula kulmay nabi muuse calayhi salaam, oo weliba qisadeenna haddaan ka sheekeynayna qayb muhiima ku yeelan doona. kadib samada toddobaad waxa uu kula kulmay nabi ibraahim calayhi salaam. kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam hore ayuu usii socday. waxaa markaa ilaahay subxana watacaala uu soo gaarsiiyey meesha markaa sidrat almuntaha. sidrat almuntaha marka waa maxay? waa geed samada maaragtay toddobaad ku yaala oo ilaahay subxana watacaala min aayaatihi ka mid ah. halkaa nabiga calayhi salaam isagoo taagan yaa geedkii uu isbedelay oo ilaahay subxana wataala amar min amri ilaahi uu yimid geedkii oo markaa isbedel cajiiba iyo qurux uu nabigu yiri addoon addoommada ilaahay ka mid oo suurayn kara waxa isbedelka ku dhacay ma jira maaragtay. waana meesha ilaahay subxana wataala qur-aanka uu ku tilmaamayo yani cinda sidrati almuntaha cindaha jannatu lma'wa id yagsha sidrata maa yagsha maa zaaga albasaru wamaa tagaa laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubra. ma garatay nabiga calayhi salatu wasalaam marka meesha aayaadka ilaahay iyo maaragtay cajaa'ibta rabbi subxana watacaala aayaadkiisa ayuu ku arkay. kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmay rabbigiisa oo alla subxaana watacaala ayaa la hadlay si toos oo mubaashir ah, iyadoona markaa tarjumaan ama qof warka usoo warinaya oo malakul jibriil ama cid kale aysan jirin, laakiin rabbigii subxaana casa wajalla uu toos ula hadlayo. halka ayaana rabbi subxaana watacaala kusoo faray salaadaha maaragtay waajibka ah ee 5 salaadood. meesha ayaa maaragtay loogu soo farad yeelay. markii hore salaadaha waxay ahaayeen 50 salaadood waxa la soo faray. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu soo laabtay uu marayo samadii lixaad ayaa nabi muuse calayhi salaam weydiiyey muxuu rabbigaa ku soo amray. markaasuu yiri wuxuu rabbigii soo amray 50 salaadood oo maaragtay inuu soo amray maaragtay ummadeydii u geeyo, aniga ummadeydaba nala kusoo waajib yeelay maalintii iyo habeenkii. marka ayuu nabi muuse ku yiri alla subxaana watacaala ka codso oo u noqo oo weydiiso inuu ummadaada ka khafiifiyo, leanna ummadaada way ku coslaanaysaa 50 salaadood oo ma kari karaan ayuu ku yiri macnaha. nabiga calayhi salaatu wasalaam rabbi ayuu u laabtay, arrintii ayuuna weydiiyey in ummaddii uu ka khafiifiyo maaragtay salaawaadkan maaragtay ayuu weydiistay. ilaahay subxana watacaala wuxuu ka reebay 10 salaadood. kadibna wuxuu usoo laabtay maxay ahayd nabiga calayhi salaam usoo laabtay haddana nabi muuse yaa haddana ku yiri maya yani ilaahay subxana watacaala mar kale weydiiso
in uu maaragtay ummadaadii ka khafiifiyo ma garatay oo intaa weli maaragtay waa ku cuslaanaysa ummadaada ayuu ku yiri haddana 40 toban baa laga soo reebay marba 10 baa laga reebayey ilaa marka dambe 5 ay soo gaartay oo 5 salaadood ay noqotay 5 salaadood markuu nabiga calayhi salaam ummadiisii soo gaarsiiyey waana 5 salaadood ee maaragtay nala ku waajib yeelay habeenkii iyo maalintii oo ah maxay ahayd rukniga labaad ee islaamka iyo silada addoonka iyo rabbigiisa u dhaxeeya ee maaragtay waajibka qofka inuu la yimaado marka salawaadkaas marka waa 5 salaadood marka la gudanayo laakiin ajirkeeda waa 50 salaadood bay u dhigantaa qofkii markaas sidii la rabay uga soo baxa maadaama 10 jeer la maaragtay laga ajasiinayo 10 laab macnaa qofka ilaahay subxaanahu caza wajalla nabiga wuxuu faray salaadahan si mubaashir ah oo aan tarjumaan lahayn waxyaalaha marka culammada isweydiiyaan waxaa ka mid a in nabiga calayhi salaatu wasalaam rabbigiisa miyuu arkay marka uu rabbi la kulmayo waxaa raajix ah inuusan ilaahay subxana watacaala arkin arrinta arkidda inuu ilaahay arka ah inaysan sugnaanin ayaa raajix ah laakiin waxaa maaragtay sugan in ilaahay subxaana watacaala uu si toosa ula hadlay biduuni tarjumaan oo aan markaa qof kale loogu soo farin ee ilaahay subxana watacaala uu si toosa nabigiisa ula hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kusoo laabtay maaragtay maka halkaa ayuu marka habeenkii baryey isla habeenkii unbay arrintaani macnaha waxaan ahayd oo waqtiga ilaahay subxana watacaala haddii awooddiisa wax la soo koobi kara maaha marka subaxii markii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam soo waabaristay dadkii ayuu arrintii u sheegay in xalay la dheelmiyey ma garatay haddii gaaladii waxaa waaye horena u beenin jiray tii marka beenintun bay sii wadeen iyo inay ku jeesjeesaan nabiga calayhi salaatu wasalaam kadibna waxay bilaabeen inay xujeeyaan oo yidhahdaan bal noo sheeg maaragtay maxaa yani baytulmaqdis su-aale ay ka weydiiyaan nabiga calayhi salatu wasalaam inuu u sifeeyo baytulmaqdiski ilaahay baaba soo hordhigay hortiisa kaanahu inuu daawanayo ayagana waxa ay weydiiyaan uga jawaabay waxyaalaha weliba uu tilmaamay waxaa ka mid ahaa in waddada intuu marayay in safar ganacsi oo iyaga ay lahaayeen inuu waddada kusii maro nabiga calayhi salatu wasalaam macluumaad iyo tafaasiil muhiim ayuu safarkaasi uga sheegay ma garatay maca daalika ma aynan rumeynin waxyaalaha cajiibka oo qisadan maaragtay dhacay waxaa ka mid ah in abubakar radiallahu canhu ay gaaladii u tageen ku yidhahdeen bal saaxiibka wuxuu la yimid arag ma garatay wuxuu leeyahay xalay baa maar halkan laga dhelmiyey baytulmaqdis lageeyey isla habeenkiina ma soo laabtay annaguna bil baan sii soconnaa bilna waa soo soconnaa markaasu wuxuu yidhi maxay ahayd haddii uu yidhi sidaa runtiisa waay marka aad bay ula yaabeen gaaladii meesha waxaa ka soo baxay fiqiga cajiibka uu leeyahay maaragtay uu lahaa maar saxaabiga abubakar radiallahu canhu waa maxay wuxuu yidhi aniga arrintaa wax ka weyn baanba ku rumeeyey oo inuu rasuul ilaahi yahay oo alla iga waramayaan ku rumeeyey marka maxay tahay u dhaha maarata alla subxana watacaala inuu wado oo geeyo oo yani taa waxaa waaye waa kun fayakun ma garat qofka marka sideedaba mu'minka ah waxyaalahaas marka kuma sirmo ma garat waxaa waaye miisaanka u kala cad ma garat miisaanka u kala cad marka sidiisa qofka ilaahay rumeeyey oo alla in adduunkan abuuray oo maamulayo hogaaminayo oo maaragtay abuuray haddana rasuulkan usoo diray oo maaragtay wixii usoo dejinaya rumeeyey wixii kale waa un tafaasiil waxa muhiima sida abubakar yidhi hadduu nebiga yidhi marba hadday sugnaatay inuu yidhi waa sax saasoo kale marka waxaa la rabaa qofka muslimka sheegan haddii ilaahay kitaabkiisa uu ku sugan yahay ama nabiga calayhi salaam uu ka ansaxay warkaani adigu war kale kuuma harinba garat waxa aad hubinaysa waa maxay haadaa fii kitaabillah haa waa ku jira rasuulka miyaa yidhi tanna oo nabiga ma ka sugnaatay calayhi salaam haa intaa markay timaado waa xaq oo aanan maaragtay dood lahayn haddii ay shaki kaa gasho oo maaragtay xoogaa war kaa galo waxaa waaye haddii rumayntaadii horaa war ku jira ma garat marka hore alla aa rumaysay kitaabkiisa aa rumaysay rasuulkiisa aa rumaysay calayhi salatu wasalaam ma garat runtii qisadan aad bay waxay u leedahay cibar badan oo cajiiba mid ka mid a waxaan ku tilmaamnay yacni waktigii ku soo aaday iyo duruufta ay dacwadu ku jirtay nabiga calayhi salatu wasalaam waxay u ahayd yacni qaboojin qalbigay u ahayd waxay u ahayd inuu dareemo cidda uu ka tirsan yahay ambiyadii ummadda uu ka tirsan yahay inuu soo arko la kulmo ma garatay ilaahay subxana watacaala aayaadkiisa awooddiisa cajaa'ibta khalqigiisa inuu soo arko ma garatay qiimayntan iyo qadarintan loo sameeyey lasoo dhoweeyey inuu maaragtay waxaasoo dhan macaani weyn oo dacwadii iyo hooshii halgankii uu ku jiray inuu maaragtay kusii adkaysto arrin usii muujinaysan way ahayd ma garatay waxaa kaloo maaragtay alla subxaana watacaala cadamadiisa iyo yaqiinta xaqan qofka qaadaya
iyadan waxaa waaye waxaaba lagu soo koobay cilada maarata safarkan ilahi subxana wataala ku tilmaamay suurata israa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina maxaa loo waday linuriyahu min aayaatina aayaadka alla subxana wataala soo tus ma garat waxaa marka nabiga uu soo arkay aayaad ah cajiib ah ilahi subxana wataala soo tusiyey runtii waxaa waaye waxyaalaha nabiga axaadiista saxiixa ka sugnaata waxaa ka mid a malaa'igta ma garat xadiid waxaa jira nabiga alay slam uu leeyay aadat isamaau wa xuqa laha antaid al-atiid maxaa la yidhaahdaa waxa waaye waa dhawaaqa ama codka ka dhalanayo rarka markii culayska uu ka bato qiiqda ka yeeraysa ba atiid la yidhaahdaa marka samadii way cuslaatay waxay la cuslaanaysaan waa maxay waa malaa'igta faraha badan leh ee maaragtay iyada dhan buuxiyey meel ka bannaan aysan jirin ilaa waxaa taagan malag oo cibaadaysanaya ama rukuucsan ama sujuudsan ma garat si ilaahay ugu hoggaansan yihiin marka ummaddan hadda diidan xaqi oo ka hortaagan inaysan waxba u arkin ma garat laakiin markuu arko addoommada ilaahay u hoggaansan iyo intay leegihiin ma garat yacni wahaakada waxaa waaye aayaadka ilaahay subxana watacaala kala duwan ayuu soo arkay ambiyadii ayuu la kulmay ambiyada dacwadii hore u waday qaar baa maaragtay waxaa raacayba dhowr qof baa raacday ma garat oo nabigaasna waajibkiisa waa gutay nabi baa imaanaya maalinta qiyaamaha waxaaba raacay qof iyo labaa raacday nabi baa imaanaya maalinta qiyaamaha cid raacday male kulligoodna waajibkooda waa guteen ma garat xaqi waa la yimaadeen waana sheegeen daaciga marka ama maaragtay nabiga ama qofku markaa dacwada u istaagayay waajibkiisa waxaa asaga inuusan dacwadii ka leexanin dadkiina u sheego uu la dul taagnaado garat laakiin natiijada ilahi subxana watacaala haba maamulkeeda iskale marka runtii qisada cajaa'ibta iyo macaanida cajiibka badan ay leedahay iyo in kaloo kasii fara badan marka haddii aan halkaas uga soo baxno qisadii alisraa walmicraaj waxaan kusoo noqonaynaa marka siyaaqii aan hore ugu soo soconnay xalaqadeennii hore ee ku saabsanaa dacwada xilligan 3 sano ee maaragta sanadkii 10aad ka dambeeyey ilaa hijrada laga gaaro waxay dacwadu ku socotay xooggeeda in la raadiyo markas kale oo markaa dacwada markas u noqda waatii nabiga calai salaam uu daa'if tegey waatii marka qabaaisha uu la kulmaayey oo qabaaisha dacwada uu bandhigayey dacwada loo bandhigaya qabaaishana waxaa maaragtay asal ahaa ee islaamkii markay aqbalaan oo qaataan in ay magaaladooda ama deegaanka ay degan yihiin in islaamka uu markas u noqdo oo meesha dacwada ay ka faafto marka qabaaishii jawaabo kala duwan ayaa maarata lagala kulmaya laakiin kulligood waxay kusoo gabagaboobayeen in arrintaasi wax aqbala oo qaata oo diyaar u noqdo inuu markas dacwadii u noqoto meeshiisii in laga waayo dad afraad ah oo islaama waa ay jireen laakiin maaragtay qolo iswadata oo markaa arrintaa aqbasha ma jirin macnaha marka habeenadii nabiga calai salaam oo hoolaha uu qaban jiray oo qabaaishaas uu la kulmi jiray kulamada habeenay dhici jireen si weliba qarsoodi ah habeenadii ka mid ah soo weliba qolo markaa la kulmay ka soo laabtay oo maraya mina agteeda ayaa wuxuu maqlay nabiga calayhi salaatu salaam rag hadlaya oo sheekaysanaya ayuu maqlay markaas ayuu ku soo leexday marka waxay noqdeen 6 dhalinyaro oo reer madiine ah reer yatrib ah ayay noqdeen 6daas marka reer madiine ah madiine 2 qabiil ah degan reer khasraj iyo reer aws niman la yidhaahdo 6duba waa reer khasraj 6dooda waxay kala ahaayeen ascad ibnu zuraara cawf ibn alxaarith raafic ibnu maalik qutbah ibnu caamir cuqbah ibnu caamir iyo jaabir ibni cabdillaahi ibni rihaab 6daa nin oo dhalinyaro ah ay ahaayeen 6daa marka dhalinyaro ah ayuu nabiga calai slat salaam mina isagoo maraya hadalkoodii iyo shanqartoodu maqlay waana habeen uu ku soo leexday kadib waa uu salaamay waa iswaraystay maarata cid yihiin iyo markaasay yidhahdeen reer yadrib baan nahay nabiga calai salaam baa marka wuxuu ku yidhi bal ka warama haddaad waxyar fadhiisataan oo aad i dhegeysataan maarata idinla hadlo way fariisteen nabiga calai salat salaam islaamkii ay u sharxay markii ay dhegeysteen waaba aad buu qalbigooda u taabtay maaragtay marka warka nabiga calai salat salaam inuu aad qalbigooda u saameeyo waxaa qayb ka qaatay magaalada ay degan yihiin yathrib waxaa la degan yahuud 3 qabiiloo yahuud reer bani qaynuqaac iyo reer bani nudayr iyo maaragtay reer bani qurayda 3daasaa marka la degan
yahuudda marka waxay markasta yidhaahdaan nebi baa soo bixi doona, ileen towraadkii bay ku caddahay, nebigaas marka soo baxo yaa annaku raaci doonaa, idinka dhanna waa idin layn doonaa bay dhahaan marar badan ka sheekeeya. marka nimankaa markay dhegeystaan waxay yidhahdaan hadha waaba nebigii oo yahuuddu idinkugu goodin jirtay, adinkaaba habboon inaad raacdaan garate. midda kale niman cuqalay ahaayeen, kastoo dhalinyaro ay ahaayeen, niman waxgaradoo fakaraya ahaayeeno aad bay waxay ugu dhibanaayeen dagaalada maaragtay ay ku baaba'een oo maaragtay maxay ahayd waxaan ugu dambeeyay xarbi bucaad oo aad isugu laayeen ma garate. marka waxay yidhahdeen waxaan rajaynaynaa in maaragtay nabiga ilaahayow in adiga ilaahay sababkaaga dhigo in ummadeenii reer madiina reer yathrib ilaahay belada haysata inuu ka dhex qaado oo ay maaragtay walaalo noqdaan ma garate, inuu ilaahay sababkaaga dhigo waana dhacday ma garate. marka waxay yidhahdeen arrintan waan qaadaynaa, qoomkeena u tagaynaa, arrintan baan ugu yeeraynaa, howshaasaynu u istaageen ma garate. sidii bayna ku dhaqaaqeen oo ku aadeen beledkoodii oo ay dacwo ka bilaabeen. waana markay arrintan dhacayso waa sanadkii 11 ee maaragtay bixithada nabiga calayhi salaatu wasalaam weeye markay arrintan dhacayso ma garate, aakhirkii sanadkii 11 waa sanad kadib waxay imaan doonaan iyagoo maaragtay baycadii nabiga calayhi salaam la geli doona oo baycat alcaqaba alula, kadibna sanadka ku xiga u imaan doona baycat alcaqaba athaaniya. marka waqfo yaraa meeshaan dul istaagaynaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadan wuxuu soo waday sanawaad oo magaaladii maka ka dhex waday. kadib waataan sheegnay inay maaragtay magaaladii maka ay dacwadii jumuud gashay. nabiga calayhi salaam daa'if u aaday, qabaa'il kala duwan oo la kulmay ma garate. ilaahay subxaanahu caza wajalla baa marka uu doona iyo meeshuu doona tadbiirkeedii ku keenay. qolo marka nabiga calayhi salaam uu u tegey ama madaxdii reer yathrib, ilaan marka xataa qabaa'isha la kulmaya waxaa la weydiin jiray yaa waay ragga meeshaan fadhiyay iyo rag xoogaa wax ka go'ah, waayo ilaan arrinta la weydiinaya arrin waxay u baahan tahay dad mas-uuliyiin oo go-aankan gaari kara ma garate, oo dhihi kara anagaa maarat. nimankan niman dhalinyaro ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waddadii uu socday shanqartoodii uu maqlay dadkii uu dacwada gaarsiin jiray oo wax u sheegi jiray ka mid ahaayeen ma garate. laakiin dhalinyartii intay dhaqaaqeen oo ay qaateen, ilaahay subxaana watacaala iyagii uu ka dhigay mirihii ugu horeeyey ee maaragtay beerma ee geed weyn oo barwaaqo ah maaragtay soo saara, geedo waaweyn oo barwaaqo ah soo saara ma garate. marka kulankaana nabiga calayhi salaatu wasalaam ma uunan kala hadlin wax ku saabsan yacni inay magaaladoodii markas dacwado u noqoto, leanno khitaabkaba kuma soconin. waxay ahaayeen rag ilaahay subxana watacaala waddada uu ku kulmiyey uu nabiga diintii u sheegay, iyagana ay la xamaasoodeen inay iyaga qaataan keliya kuma aysan ekaysanine inay ballan ku qaadeen inay ummaddoodii xaqan gaarsiinayaan ma garate. weliba xataa marka kale ay imaan doonaan sanad kadib yacni baycada nabiga calayhi salaam ay la galayaan xataa kuma jirto mowduucaas. baycada saddexaad baycada labaadee kulanka koowaad bayca ma ahayn oo waa kulanka dacwada loogu sheegay, kaa dambe ayay ka dhalan doontaa in maaragtay meesha markas ay dacwada u noqoto nabiga calayhi salaam u guuro. marka yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam juhdi iyo camal mutawaasil ah maantoodan abubakar ula socdo oo qabaa'ishii la kulmay oo mid kasto la fiirinayo iyo noocooda iyo dadkooda iyo baa la wadiyay, asbaabtii la qaadanaya. laakiin meesha ilaahay subxana wataala waxa ka keeni doono waa meel alla subxaana watacaala maamulka iyo tadbiirkeeda iyo saacaddeeda alla isku soo aadiyey ma garate. raggaa nabiga calayhi salaam waddada maraya kula kulmay, xaqii u sheegay, ilaa marka dambe arrintan weyn oo baraka ah ee ka dhalatay. marka dadka ducaadda ah marka waxaa laga rabaa iyagu inay waajibkooda ka soo baxaan oo xaqu ay maaragtay u istaagaan. alla subxaana watacaala ayaa howshaan maamulkeeda iyo geedigan meesha ku furanaya. alla subxaana watacaala ayaa maamulkeeda iska leh. raggii sidaas ay ku dhaqaaqeen waxay maaragtay ku noqdeen magaaladoodii, dacwo iyo shaqo fiican ayayna ka qabteen oo dadkoodii iyo xaqi ugu yeereen, iyagoo weliba qarsoodi warkooda aanan maaragtay meel public la gelaynin, laakiin isku dayayay dadkii markastaba qoladay gaarsiin karaan inay gaarsiiyaan. sanad kadib sanadkii 12 ee bixithada nabiga calayhi salaatu wasalaam mawsimkii xajka ayay yimaadeen wafdi ka socda maaragtay reer yathrib oo raggii macnaha islaamka qaatay ah oo 12 qof ka kooban. 6 hore oo nabiga calayhi salaam la kulantay markii koowaad hal qof ka soo haray oo jaabir bin cabdillaahi aan safarka soo raacin. 5 marka 6 hore ka mid ah
iyo 7 cusub ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la kulmay maxay ahayd sanadkii 12aad muusimkii xajka. halkaa bay nabiga calayhi salaatu wasalaam beeco kula galeen. beecadaa marka waxaa la yidhahdaa beecatu alcaqabati aluulaa baa la yidhahdaa beecat alcaqaba aluulaa. beecat alcaqaba aluulaa bunuuddeeda marka la fiiriyo waxaa waaye waa bunuudda guuda islaamka in ilaahay subxana watacaala ay caabudaan, shirki aysan maaragtay ilaahay cid kale wax la wadaajinin, waxyaalihii waaweynaa ilaahay xarimayo sariqadii iyo xatooyadii iyo zinadii iyo maaragtay ilmaha la dili jiray oo dhaqanka gaalada ka mid ahayd, waxyaalihii maaragtay xumaa baa laga reebay inay maaragtay inay ka fogaanayaan bay beeco ku galeen, ballan ku galeen. laakiin macnaha beecadu wax dagaal iyo hiila islaamka loo hiilinayo oo military kuma jirin. walidaalika marka waxaa la yidhahdaa beecat الnisaa baa la yidhahdaa baayacuuhu beecat الnisaa ma garatay. macnaha inta hadda ay maaragta haweenka ay ku galayaan ballantaa weeye ayaa marka ma jirin wax oo intaa dhaafsiisan macnaha. kadib waxay dalbadeen in uu nabiga calayhi salaatu wasalaam qof saxaabadiisa ka mid uu ku daro oo markaa dacwadii faafinteedii ka qayb qaata oo magaaladii Yathrib dadkii gaarsiintii dacwada ka qayb qaata. waxaa arrintaa marka loo xil saaray saxaabiga Muscab ibnu Cumayr oo runtii si cajiiba doorkiisa u gutay oo maaragtay aad maaragtay la yaab u leh ma garatay. ilaa dacwadii Yathrib sanad gudaheeda guri ka mida guryaha reer Yathrib oo ay dacwadii aysan gelin aysan jirin ma garatay. sanadkii 12aad aakhirkiisii waaye marka la dirayay bacdaha bisana oo sanadkii 13aad waa markay dhacaysa beecad alcaqaba athaaniya, waana markaas oo magaaladii madiina ama Yathrib ay dacwadii ku faaftay guri guri ma garatay. shaqo aad u cajiib badan ayuu qabtay. dadaalka iyo kartida iyo shaqada maaragtay kala joogsiga lahayn u waday waxaa la socotay usluub wanaag iyo hanaan wanaagsan oo dacwada u bandhigayo oo dulqaad iyo ixtiraam iyo macnaha dejin qofka xanaaqsan uu dejinayo ay maaragtay ku dhehan oo sabab u noqotay in si sahlan dacwadiisii loo qaato. marka waxaan soo qaadanaynaa hal qiso oo aad u cajiib badan oo maaragtay arrintaasi loo soo qaato mithaal ahaan loogu soo qaato. qisadan waxaa waaye saxaabiga Ascad ibnu Zuraara iyo Muscab ibnu Cumayr oo shaqadoodii wata dacwadii faafinteeda ayaa waxay yimaadeen meel deegaan ay markaas maxay ahayd reer Aws ay degan yihiin. marka saan hore usoo sheegnay Ascad ibnu Zuraara waa nin reer Khasraj ah oo raggii ugu horreeyay 6dii hore ku jira. Muscabna hadda ninkan Maka ka yimid. marka meeshaan ay soo degeen oo dacwadii ka faafinayaan waa dhul reer Aws ah. marka arrintii waxaa maqlay Sacd ibnu Mucaad radiallahu canhu iyo Usayd ibnu al-Xudayr. marka Sacd ibnu Mucaad ayaa marka hore arrinta ogaanaya. labadoodu marka waxay ka tirsan yihiin niman la yidhaahdo bani cabdil ashhal oo lafaha Aws ka mid ah. marka Sacad baa wuxuu u tegayaa Usayd wuxuu ku leeyahay nimankaa halkaan yimid Ascad baa yimidoo ninkii wuxuu wataa marka yani maka ka keensadayo ma garatay. marka waxaan rabaa inaad meesha ka ceeriso. aniga waan ceerin lahaa buu yiri, laakiin Ascad waa ilma habreed bay yihiin. Sacd ibnu Mucaad iyo Ascad ibnu Zuraara waa ilma habreeda. marka saas uga leexanay inuu asaga toos u waajo. marka wuxuu ku yiri Usaydo u tago meesha ka ceeri ma garatay. marka Usayd baa soo aaday meeshii ay joogeen Muscab ibnu Cumayr iyo Ascad ibnu Zuraara. marka uu Usayd soo socdo waxaa la tilmaamaa in uu Ascad u dardaarmay Muscab. wuxuu ninkan kuu soo socdo waa nin sayidu qowmiga ma garatay ee maaragtay si macnaha dadaal ilaahay maaragtay si khaalis ah dacwada ugu bandhig ma garatay oo intaad awoodid adiga. marka markii uu yimid wuxuu bilaabay marka inuu yani ku qayliyo oo maaragtay yiraahdo maaragtay yani dhulkeenni baad noogu soo galaysaan intaas dhiirashada la egtihiin markaasaad caruurteenni iyo maaragtay dadka naga fasahaadinaysaan. marka Muscab wuxuu ku yiri ka waran haddaad fadhiisato oodna dhegaysato, haddii warkeenna aad jeclaysatana aad naga qaadato naga aqbasho, haddii kalena wixii ku dhibaayo waa kaa deynaynaa. waa hadal xikmad iyo cadaalad ay ku dheehan tahay. wuxuu yiri waa okay. wuu fadhiistay warankiisii uu dhulka surtay markaasuu bilaabay inuu dhegeysto. haddee Muscab arrintii u bandhigay islaamkii u bandhigay qur-aankii buu ku dul akhriyey ilaa ilaahay subxaana watacaala qalbigii Usayd u furay
iimaankii iyo nuurkii. Wuxuu yidhi maxaan sameynaya qofka arrintan soo gelaya, maxaa laga rabaa inuu sameeyo? Wuxuu waa inuu isdaahiriyaa, isagana qubaystaa, dharkiisana daahiriyaa, shahaadat alxaqna uu ku dhawaaqaa oo ilaahay subxaana watacaala waxidaa. marka arrintii wuu u sheegay, sidii uu sameeyey, marka wuu islaamay radia allahu canhu. kadib wuxuu ku noqday meeshii uu uga soo tegay Sacd ibn Mucaad. Sacd baa la yaabay marka, ninkan wejiga uu iiga tegey weji ahayn buu la soo laabtay buu yidhi. warhayi wuxuu yidhi maxaad la kulantay? wuxuu yidhi waa nimankii waa la hadlay, marka waa la hadlay, laakiin waxaa maqluu yidhi niman oo bani xaarisa ah, waa laf kale oo maxay ahayd ka tirsan yacni aws ka tirsan yaa baxay buu yidhi, waxayna rabaan inay dilaan Ascad ibnu Zuraara, inay dilaan bay rabaan. wax kalena ma rabaan inay u dilaane adiga inuu ilmahabreed ay tihiin ay ogyihiin, adigay rabaan inay kugu xumeeyaan oo ay kugu dhibaateeyaan oo dee ninkii maaragtay aad ehelka aheedeen bay rabaan inay soo dilaan. markii uu soo orday si uu arrintaa uga hortago, markii u yimid Ascad ibnu Zuraara iyo Muscab oo fadhiyo dhib aanan haysanin, wuxuu dareemay in maaragtay Usayd uu rabay qaab uu markaa Sacad meeshan uu ku yimaado nimankan warkooda u dhegeysto. Sacad raggii u yimid uu ku xanaaqay, ku qayliyey sidii marka hore Usayd u qaylinayay. marka waxay yidhaahdeen, Muscab baa la hadlay, wuxuu yidhi ka waran, haddaad fadhiisato oodna dhegeysato, haddii warkeena aad jeclaysatana aad naga qaadato, haddii aad dhibsatane wixii ku dhibaya waan kaala tegaynaa, waa kaa qaadeenaa, magarata waa kaa leexinaynaa. wuxuu yidhi warkan waa war fiican. wuu fadhiistay, warankiisa dhulka surtay, wuxuu bilaabay inuu dhegeysto. ilaahay subxana watacaala qalbigiisa u furay markii loo sheegay islaamkii, qur-aankii lagu dul akhriyey, qalbigii baa ilaahay u furay, sidii uu asagana ku islaamay. qoomkiisii bani cabdil ashhal buu dhex galay. wuxuu yidhi cid aan hadal igala dhexeeya male ilaa kulligiin aa islaamka qaadataan oo ilaahay aa rumaysaan subxaanahu casa wajal. sidii bay iyagana marka islaamkii u qaateen. sanad gudihiisa ayaa waxaa waaye ilaa meelo naadira mooyaane magaaladii Yathrib guri kasto islaamkii waa galay. dad baa ka islaamay, qof baa ka islaamay, ama ka badan baa ka islaamay. beyt kasto ayuu galay islaamkii. waa marka juhdi aad u cajiib badan oo uu bixiyey saxaabiga Muscab ibnu Cumayr iyo raggii maaragtay reer Madiine ahaa ee markii horeba maaragtay dalbado u yeertay. sanadkii 13 waxaa markaa la isugu yimid baycadii weyneyd, baycatul caqaba athaaniya. baycadaa marka waxaa waaye tir ahaan dadka kasoo qayb galana waa ay badnaayeen. waxyaalaha lagu galay, bunuudda lagu galana waa bayca ka xoogan baycadii hore ayay ahayd. marka insha allah ahamiyadda baycadaas ay leedahay iyo mawaadiicda ka dhalanaysa darteed waxaan maaragtay kaga hadli doonaa xalaqadeena soo socota haddii ilaahay idmo. intaan xalaqada kale kaga kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.